السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلامي لما نمد الصوماليات قارهان ولماذا قارهان ولماذا الصوماليات خاصة waxaan rabaa halkaan inaan uga hambaliyeeyo mowqifka sheekh cali warsame xafidahullah oo ka mid ah culimada Soomaaliya ragga ugu da'da waaweyn. sheekh cali warsame oo ahaa in badan ra'iiska ama madaxweynaha ururka wadaadada oo asal markii hore ahli ahaa kadib itixaad ahaa kadib mar noqday magac kale la baxay haddana ictisaam ay u dambeysay madaxweynahoodii muddo dheer ah iyo odayaashii mu'asasiinta ah culimada Soomaalidu la yaqaan raggooda intooda badanna ay manhajkaas ku abtirsadaan. waxaan ugu hambalyeeyaa mowqifkiisa geesinimada leh ee uu kaga hadlay Soomaaliya iyo midnimadeeda iyo xuduudaheeda. waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan dareensiiyo culimadu amar ilaahiyah weeye in la ateeco. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wa atiicu allaha wa atiicu arasuula wa uli lamri minkum. ateeca ilaah rasuulkiisa ateeca dadka ulil amriga ah ee madaxda idiin ah ee idin xukumana ateeca. dadkaas iyaga ah ee tafsiirka koowaad oo ay leedahay kelmadda wa ulul amri minkum culimada mufasiriinta aktharuhum waxay sheegeen inay tahay culimada dadka la ateecayaana iyaga weeye. maxaa yeelay qofka ilaahay subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa kugu xiraya ayaa idaaro iyo imaaro labadaba xaq u leh, isagaana dadka ku leh suldo mutlaqa ilaahay subxaana wa tacaala ambiyadu siiyey. ثم عدي إيجا دعوة إيو اللواء ودي علن كودا ودا مركا تفسير كاس وجوه الرجال كاس كل عيا. بعد ذلك بوح كل عيا ومرضى خلافة وأهل الدين كأه وإلهي دين تسددك كحكمة. مركا إلهي وحكلو يري قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. مسميهين دتك علمي قليا دad kaan cilmiga lahayni markaasuu wuxuu yiri waxa ilaahay subxaana wa tacaala garta awaamirtiisa fahma wuxuu doonayo oo jecel yahay oo ummadda iyo bani aadamka uu u rabo yaqaan dadka cilmiga leh oo ulul albaabka ah oo ahlu caqliga ah. wuxuu kaloo ilaahay subxaana wa tacaala yiri yarfac illaahu alladina aamanuu minkum walladina uutul cilma darajaat. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka dul marinayaa ama ka sara marinayaa dadka culimada ah iyo dadka iimaanka leh intiina kale wuxuu ka sara marinaya darajaad intaas oo darajo ka sara marinaya. Soomaaliya waa mid iska daa Soomaaliya inay mid tahay muslimiinta iyo wadamada muslimiinka ah oo dhan baa la rabaa inay noqdaan hal dawlada hal wadan oo islaama ayaa la rabaa dadka muslimiinta ah inay leeyihiin hal imaaro iyo hal ummada inay leeyihiin. wa inna haadihi ummatukum ummatan waaxida وأنا ربكم فاعبدون. إلهي سبحانه وتعالى أنا ربيين ومديننا وهل أمة واحدة وهي عابدة أيويري ربي سبحانه وتعالى هل أمة مركا آبهين وإبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. إلهي وحو إنو شيء إنو آب إبراهيم أو ليراد أبو الأنبياء أو مسلم dadka caalamka ku nool dadka ugu badanna ay ka soo farcameen ambiyadoo dhan aktharkooduna ay isaga awlaadiisi ahaayeen iyo axfaadiisi ayaa waxa uu idin bixiyay baa muslimiin. marka dadka muslimiinta ahi iyagoo muslimnimo ku midoobi kara haddii muslimnimadii guud la waayay intii hoose oo yarayd lasii kala furfuro sax maaha. Soomaaliya waa Soomaaliya xuduudana ma kala laha. sheekh cali warsame waxaan ugu hambalyeeyaa mowqifkaas geesinimada la uu qaatay. culimada inteeda kalena waxaan ku baraarujinayaa ma sahlana mawaaqifta adag in la qaato in mowqif adag la istaago oo la yiraahdo Soomaaliya waa mid lamana kala qaybin karo. waxay u baahan tahay geesinimo iyo raganimo u baahan tahay.
waa inay wadaadadu si guud meelay joogaan ba arrintaas mowqif midaysan uga qaataan. Soomaaliya waa mid, lamana kala qaybin karo. awal baa la kala qaybiyey, qaybtii maqnayd inay doonaan bay ahayd Soomaalidu. wadaadadu weligood meelaha ad adag iyo magaranaysaa mawaaqifta ad adag caan bay ku yihiin. Soomaaliya waxaa gumaysigii dadkii ka xoreeyay oo ka badbaadiyey ugu badnaa culimada. dadkii la dagaalamay ama dadka magaranaysaa fatwada siinayay oo diinta u sheegayay oo la dagaalamay culimay ahay. culimadu mowqif bay leedahay. mowqifkeedu waa Soomaalinimo, waa islaamnimo, waa dadka oo Ilaahay subxaana wa tacaala dhankiisa loo jiheeyo. qaybsanaan iyo tafaraaruq iyo khilaaf ilaahay subxaana wa tacaala baa diiday oo qur-aankiisa ku diiday. wactasimuu bixablillahi jamiican walaa tafaraquu. masalada aayaddaas labada qaybood oo isla la israaciyay, laba statement, laba sentence baa la israaciyey. midna waa amar, midna waa nahyi. haddii amar inta shay la amro aan waxba laga daba keenin, alamru yufiidu bilwujuub. usuusha marka la joogo iyo usuulu fiqiga amarku wuxuu faa'iideeyaa waajib. intaas keliya ku filnay. markii nahyi bilcagsi ama annahyu fii cagsihi lagu darana way kasii adag tahay arrintu. awjaba alwaajibaat bay noqonaysaa. yani waxaa la wactasimu bixablillahi jamiica, idinkoo dhan xarigga ilahay wada qabsada. markii saa la yiri baa walaa tafaraquu, ismana khilaafi kartaan. amar baa waxaa lagu xoojiyey nahyi cagsigiisa lana nahiyahay. ciddii khilaaf ku dhacdaa waxay ku dhacday dembi. ciddii laba jeeray dembi ku dhacday. marka koowaad waxdadii iyo midnimadii bay khilaaftay. marka labaadna wixii la reebay bay ku dhacday oo nahyiga ahaa. laba dembi bay leedahay. marka min awjabi alwaajibaat ayaa lagu soo arooriyey aayaddaas oo ah in aan ilaahay subxaana wa tacaala xariggiisa lagu kala tegin. midnimada inaan la kala qaybin. dadka ehelka ah oo qaraabada ah oo xididka ah oo wax walba ah, wax walbana iskaga xiran yihiin. haddii la yidhahdo xuduud baa loo kala samaynayaa, adeer xuduudihii waaweynaabaa la burburinayaayo. jarmalkiibaa laysu furay, ma arkaysaa? wadamadii baa midoobay. yurub oo dhan baa xuduudeedii baabi'inayso, qaadayso, rabta inay hal wadan noqoto. oo mar dhow waxay ku socotaa inay noqoto hal madaxweyne yeelato. soo ma arkaysid? ku socota. xaggee inagu joognaa? dad wada kulligood isku luqad ku hadla, oo kulligood isu eg, oo kulligood isku dhal ah, oo meel ka wada yimi, dhal wada ah, oo hal meela ka wada yimi, oo aan diin iyo dhaqan iyo luqad iyo midab iyo wax kala geeya aysan jirin. baanu kala qaybinaynaa oo ku kala doobiyeynaa oo ninba meel inta koox ku xaraysto isagu ka baar qabaynaya. that's not right. sax maaha. waxa in la yeelo oo la aqbalo culimadu ay inay ka aamusaan ay tahayna maaha. culimada waxaan aaminsanahay xilligii loo baahnaa in la joogo, waqtigoodii in la soo gaaray. sheekh cali warsame xafidahullah iyo sheekh daahir aw cabdi oo hadda ka hor boosaasa ka hadlay, iyo si guud culimada guud oo meel walba joogto ka hadlaysa midnimada Soomaaliya ma aha arrin u baahan ma garanaysaa in laga gala niqaash. qabyaalada hala joojiyo. qabiil qaran ma noqdo. reer hebel qabiil reer hebel la yiraahdo qaran ma noqdaan. intay doonaan hala ekaade, waxay doonaan ha haysteen. qabiil qaran ma noqdo. yani istaxyu billah. ninka reer hebel laan baan nahay ku celcelinaya, wuxuu ku faanayaa reer hebel baan nahay. reer hebelna wax lagu faana maaha. ilaahay subxaana wa tacaala qabiilka markuu ka hadlayay wuxuu inoo sheegay inuusan macno badan lahayn, aan ka ahayn in laysku garto, laysku dhaxlo. ninkaa dhaxli kartid, ninkaa guursan kartid, ninkaadan guursan karin, qofka xaq u leh ee ma garanaysaa xoolahaaga, qofkaan u lahayn, qofka nasabkaaga ku abtirsan kara. intaa uun bay ahayd. ina akramakum cinda allahi atqaakum baa laga dabamariyey. waxaa idinku karaamo iyo sharaf badan dhexdiinna inta idinku taqwada badan. yacni wadaadada xilligoodii baa la joogaa. wadaadadu inay kooxeeyaan oo kooxiba ay markaa qabiilkooda raacdo ama ay aamusto oo iska aamusaan. waxay dhahaan assukuut calaamatu rida. markaa aamustidu arrinkaa aamustid waxay ku tusaysaa baa la yidhi arrintaa inaad raalli ka tahay. arrintaas sax maaha. soomaalida culimadoodu waa inay xilligoodii baa lagu jiraa. haddaa loo baahan yahay. waddankii inuu dhaqaaqay u badan tahay, waddankii inuu hirgalay u badan tahay. waxaa loo baahan yahay in ummadda geesaha inta la qabto kulligeed meel la isugu keeno oo hal meela lasoo wada fariisiiyo oo wixii ka dhiman oo iyaga ka maqan halkaa laga wada ururiyo. arrintaa marka shiikhu uu ku dhiiraday. waxaan ka rabnaa culimada reer waqooyi galbeed
ama dhankaas jooga inay raacaan shiikha ay ku daydaan soo wada hadlaan kulligood mowqifka shiikha ay ayidaan in la yidhaahdo somalilan iyo soomaaliya laba dowladoodoo la kala yidhahdaa ma jirto gumaysi baa dadka kala qaybiyey goormay legitimacy ka horreysaa jirtay ma ingiriiskaa legitimacy cid siin kara ingiriisku cadow buu ahaa goormuu nin fiican ahaa talyaanigu col buu ahaa goormuu nin wanaagsan ahaa goormaa duulaankii ina qabsaday iyo amxaare iyo kenyati in laynoo qaybiyey iyo faransiis ay noqdeen dad fiican oo markaa waxay sameeyeen ay daliil u tahay wax jiri doona ama jira legasigii gumaystuhu goormuu wax lagu faana noqday waxaan idin xasuusinayaa maraykanku markuu xornimada ka qaatay ingiriiska maraykanka dadka xornimada ka qaatay ingiriiska ogaada waa dad ingiriisa asalkooda dalkoodii ay ka yimaadeen bay ka go-een oo ka xoroobeen markii ay ka baxeen wax alla wixii miqyaas ahaa iyo wixii magaranaysaa lagu yaqaanay ingiriiska waa bedeleen oo waa qayireen ingiriiska dhulka laamiga waxaa laga maraa dhanka midigta baabuurka darawalku bidixdu xigaa maraykanku cagsigay ka dhigeen soomaaliya oo kale ka dhigeen bidixdaa la maraya baabuurku bidixdu maraya darawalku wuxuu xigayaa laamiga darawalkaa wuxuu xigaa dhanka bidixda ah midigtana waxaa xiga qofka basengerka banaanku xigaa wadada marka midigtay ka marayaan maraykanku cagsigeeda wey mile bay wax ku xisaabsadaan maraykanku ingiriiskuna kilomitr bay wax ku xisaabsadaan ingiriisku waxay ku xisaabsadaan ma garanaysaa waxa la yidhaahdo wax alla wixii maraykanku ingiriisku haystay bay cagsi ka dhigeen oo bedeleen yaardi iyo ma garanaysaa measurements kale isticmaali jireen kulli waa ka baxeen ma arkaysaa yani wax kale maaha qofka markaa ka xorowdid cadow weeye xornimadaadii aad ka heshid ammaan kuguma leh karaamana kuguma leh sharafna kuguma leh col buu ahaa ina kusoo duulay boqolaal sano ina addoonsanayay ina gumaysanayey waxaan u baahannahay inaan ka qaadano yacni magdhow ka qaadano maaha inaan ku abaalmarino ingiriiska xuduudahaas dhigay waa ixtiraamaynaa ingiriiska xuduudu dhigay yaa u siiya legitimacy inuu noo kala xarxariiqo annaga waddooyin who said that ma nagu laha legitimacyna naguma laha xuquuqna naguma laha karaamana naguma laha lamana ixtiraamayo xuduud uu ingiriis dhigay waxaanan u ixtiraamayn etoobiya waxaanan u ixtiraamayn kenya waxaanan u ixtiraamayn somaliland waxaanan u ixtiraamayn jabuuti cidna loo ixtiraami mayo maxaa loogu ixtiraamayaa yacni cadow nagu soo duulay oo na qabsaday oo na addoonsaday oo rabay inuu na qaato oo ilaahay subxaana wa tacaala huma bacda allahi ilaahay nagaga fujiyey dagaal iyo dadaal rag ay dadaaleen iyo jihaad iyo magaranaysaa dad dhintay oo u dhintay oo dhiiggooda u daajiyay rag iyo dumarba leh yacni wixii aanu ka helnay oo xorriyad ahayd baanu iyaga ku abaalmarinaynaa inaan weli ku maamuusayno wixii ay go-aamaday gaareen iscaqli ma aha yani waxay tusaysaa hawo iyo jacayl dad xukun inay waxuun xukumaan raba hawo madaxa kaga jirta oo ay rabaan si ay xukunka uun u fadhiyaan inay dadka kala qoqobaan oo gruubba meel nin ku xeraysto oo markaa sidii baarqab geel ku jira uu isaga ku doobiyo oo uusan ogolayn cid kaleo geela soo gasha geelaan ogolayn awrta baarqabka ahi ma ogolaa rati kale inuu soo galo geela ma ogola markay arkaan rati geela kusoo socda waa markiiba waa la diriraa waa territory waa xoraystaa areadiis xoolaanna nalama kala qoqobi karo ma doonayo laygumana xukumi karo rightskaygay ka mid tahay soomaaliya meeshaan doona inaan ka degi karo sidaa shiikhu uu sheegay maanta sheekh cali warsame qofka muslimkaahi wuxuu xaq u leeyahay oo soomaaliga ahay meel kasta oo soomaaliya ka mid ah intuu dowladda u tago inuu yidhaha guri baan rabaa inaan dhistay dhul halay siiyo dhulka ay siiso buu dadka ka xigaa gurigiisuu dadka ka xigaa intaa keliyuu dadka ka xigaa laakiin reer hebel baa nahay oo reer hebel baa xaafadaan u badan sidaa darteed annagaa uga badanayno annagaa uga xoog badan annagaa iskale annagaa ka xigna dadka isgarbage qabyaalad weeye qabyaalad intaasaa la yidhaha qofka soomaaliga ahi meel kastoo soomaaliya ka mida wuu degi karaa waxaa kaloo aan rabaa inaan masalo dadka ku faaftay aan halkan ka cambaareeyo waxaan puntland iyo ku arkaa in badan dadka barakacayaasha ah meelaha ay degan yihiin barakacayaal maaha qofka soomaaliga ahi barakaca maaha loogumana yeeri karo barakaca meeshuu raba ha ka yimaado hadduu soomaaliya meel un ka mida dego waa nin degaankiisii yimi oo dalkiisii degan magac gaara ma yeelan karo qaxooti maaha waxaan arkaa waxa la yidhaha IDP internally displaced people ma aha internally displaced dad soomaaliya weeye ama baydhabo ha ka yimaado ama koonfurta ka shishaysa ha ka yimaado ama waqooyi meesha ugu fog ha ka yimaado ama Ethiopia ha ka yimaado qofka soomaaliga ahay markuu soomaaliya yimaado meel ka mid ah meeshaasuu leeyahay waa soomaali iyaduu ka mid yahay
marka in magac loo bixiyo oo si gaara loo karantiilo edab darro wey dhaqan maaha dhaqan xun wey waa in la joojiyaa dadka waa in la soo dhaweeya waa in wax la taraa qofba waa inuu meel degaa xaafad in la isugu ururiyo segregated ay noqdaanna looma baahna waxyaabaha ka yimaada waad garan kartaan cuqdad iyo qabyaalad baa ka imaanaysa dadku waa inay magaalada meeshay doonaan ka degi karaan waana in si guud looga warhayaayo reer kasta oo danyar ah ama ha ahaado mid soo qaxo meel ka yimi shishe ama ha ahaado mid meesha ku dhashay oo dayacane waa in si toosa dawladda uga warhaysa soo ma arkaysid waxaan arki jiray berigii hore waxaa la dhihi jiray xabadi keentay waxaa loo bixiyey dadkii asal ahaan degaankan ka soo jeeday puntland laakiin meelo kale ku dhaqnaa oo qabaa'ilkii markay dirireen oo xabad laysla dhacay soo cararay baa waxaa loo bixiyey xabadi keentay dadkii xabadi keentayga ahaa waa sign iyo calaamad gaara oo loo samaynayo dad gaara si loo karantiilo waxyaabaha noocaas oo kale ah waa in laga waantooba qodobkaasna halkaasaan ku hakinaya qodobka ugu dambeeya waxaan rabaa inaan si guud nimanka soomaalida siyaasiyiintooda ah ula hadlo culimada lama xirxiri karo period nin shiikha lama xiri karo shiikh waa ka sarreeyaa xabsi iyo ciyaal suuqnimo tuugna maaha criminalna maaha nin shiikha lama xiri karo nin shiikha oo culimo ah lama ihaanaysan karo ihaanada culimadu waa ihaanada diinta islaamka puntland waxa ay ku kacday wax loo dulqaadan kara maaha wax la aqbali karana maaha culimadu xarig ma leh haddii aa wax isku haysaan idinkii culimadu wada hadal bay leedahay inta si karaamo iyo sharaf leh loo casumo culimada waxa ay laysku hayo in lagala niqaasho xaq baa loogu leeyahay laakiin culimadu xarig ma leh mana la xiri karo ninkii culimada xirxiraana waa nin daalina oo ku dhiiraday diinta islaamka ku dhiiraday ma la xiri karo nin caalim waa shiikhaagii waa ninka aad weydiin lahayd saa u tukan lahayd waa ninkaa weydiin lahayd maxaa iga xaaraansan iyo maxaa ii xalaala waa ninkaa weydiin lahayd see ilaahay u caabudaayo aakhiro janno ugu gaaraa waa ninkii aad ruuxdaada ku korin lahayd aqwaashiisa iyo aragtidiisa iyo maskaxdiisa iyo cilmigiisa ninkaa ruuxdaada ku korin lahayd ninka qalbigaaga ilaahay ku xiraya wey adiga iyo ilaahay subxaana wa tacaala kan isku kiin xiro wey maxaa xarig u keenay culimada xarigooda waxaa uun ka shaqeeya nin mufsid ah iyo nin jabbaar ah oo mutakabir ah iyo nin magaranaysa aan diin lahayn baa ka shaqeeya looma ogolo culimada xarig iyo xabsi toonna xataa haddii la isqabto oo magaranaysa la isfahmi waayo waxay leedahay wain tanaasactum fi shay fain tanaasactum fi shay farudduhu ila allahi warasuul kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala iyo sunnada nabiga sala allahu alayh wasalam baa la ysula noqdaa waxaan iyagana rabaa inaan u sheego wadaadadu nimanka isimada ah nimanka madaxda oo siyaasiyiinta ah waa inay u noqdaan nasiix waa inay diinta u sheegaan waa inay waaniyaan waa inaysan u muuqan inay components u yihiin iyaga inay opponents u yihiin opponent ku ah inay yihiin waa inaysan u muuqan macnaha qolo kasoo horjeedo mucaarad ku ah waa inaysan u muuqan shiikhu inuu mucaarad u muuqdo waa laga fiican yahay shiikha waxaa la doonayaa inuu u muuqdo nin dadka oo dhan hogaaminaya oo ku hogaaminaya liibaanta iyo wanaagga wa fii dimnihim asiyaasiyuun yani dadka aad hogaaminaysa waxaa ka mid a oo aad rabtid inaad wax u sheegtid oo magaranaysaa qiyaado u noqotid shiikhu waa qaa'idka dhabta ah wa ulul amri minkum saan aayaddii hore idinku sheegay isaga ah qaa'idka dhabta ah marka ninkii qaa'idka ahaa inuu dadkii uu qiyaadada isagu ahaa oo raciyadiisa ahaa uu kala guro oo qaarna uu mucaarad ku noqdo qaarna lama rabo waxaa la rabaa shiikhu inuu ka koreeyo jeeb iyo gruub iyo koox gaara inuu ka sarreeyaa la rabaa soomaalinimo islaamnimo markii afrikaannimo iyo wixii kasii sarreeya halkaa inuu shiikhu aadaa la rabaa shiikhu inuu meel hoose iyo koox hoose galo lama rabo mucaarad laba qof oo iscayrsanaya inuu isaga uu noqdo markaa scapegoat uu noqdo oo qolo ay u adeegsatana lama rabo waxaa la rabaa inuu nasiix noqdo hadduu wax diidan yahay madaxweynaha waa inuu u yeeraa oo yidhaahdaa soo fariiso madaxweynuhu ma diidi karo culimadaa ku rabta hadii la yihahdo ma diidi karo waa inuu aqbalaa waa inuu soo fariistaa waa inuu yeelaa iyaguna waa inay u yeertaan waa in nasiix laysu ahaada la yidhaha arrintaani waa khaldantahay arrintaani waa khaldantahay waxa iisoo hartay oo aan ku khatimayaa waxaa la yidhi wadaadaa la xirxiray maalin dhaweyd oo niman culimaha oo muxtaramiina la xirxiray oo raggaan anigu aqaan ay ka mid yihiin sheekh maxamed macalin xafidahullah nimaan akhlaaq iyo diin iyo miisaan ku aqaan buu ahaa intaasuuna leeyahay aniga agtayda intaasuu ka leeyahay hadduusan isbedelin oo mana arag wuxuu isku bedelay iyo meel isku bedelay ma ujeedaa xarigooda culimadaa la xiray waxaa la yidhi waxaa lagu baysgareeyey
dembi bay galeen oo dembigu muxuu ahaa dowladda federaalka baa lacag siisay dowladda federaalka inay dadka lacag siiso puntland jooga dembi miyaa qoran oo criminal code leh waa la isku haystaa qodobkaas waxaan arkayay niman parliamentarian oo leh xukunkaasi ama qodobkaas isaga ay horay uma jirin mana jiro haddii dembi aan qornayn oo aan la aqoon qofkii saa yeela haddii la yidhahdo waddada ninkii stopta istaaga tigid baa la siinayaa waa naqaan laakiin haddii la yidhahdo ninkii stopta istaaga lacag baa la siinaya wax la garanaya maaha waase dhici kartaa haddii marka qof inta istaago lacag la siiyo ama qof yidhaahdo qofkii stopta istaaga lacag baan siinaya dembiile maaha lama xirayo qofkii stopta gooyaan lacag siinaya dembiile maaha lama xirayo qofkii gooyay baa tigidka la siinaya haddii sharci ay jebiyeen uu jiro oo lagu qaadayo waa macquul qofkii dembi galay oo dembi qoran galay oo dembigaas dalka nidaamka iyo dastuurka u degan dembi ka galay waa lagu qaadi karaa midda labaad goormay noqotay dowladda soomaaliya oo federaalka ahi entity aan lacag laga qaadan karin dowladdu lacag intaa waa iyada qaylinayso le lacag hana siiso federaalku oo hadday adiga lacag ku siiso iyo hadday dadka siiso ay dhulka geliso what's the difference hadday adiga kuu dhiibto ay ku tiraada dhulka geli iyo inkastoo aan ka hadlay oo aan jeclahay dowladda federaalka inay si mas-uuliyad ay ku dheehan tahay wadaniyadna ay ka muuqato miisaanna leh inay dalka u maamulaan oo aanay dadka iska horkeenin oo aanay khilaaf iyo qalalaasi aysan iyagu hormuud u noqon aan ka hadlay arrintaa waa ka hadlay ku noqon maayo hase ahaatee goormay noqotay dembi in dowladda federaalka ay lacag siiso weliba ay siiso niman mutabariciin oo iyagu waktigooda iyo aqoontooda iyo caqligooda ku tabarucayo dadka danahooda ka shaqeynaya oo infrastructureka dhisaya in lacag la siiyo goormay dembi noqotay goormay dembi noqotay dhalinyaro ra-iisul wasaaraha la hadlay oo yidhi garoon sports baan haysanaa noo dhis goormay dembi noqotay waxaan dembi maan leeyahay haddii alla idmo ha la isdejiyo buuqa ha laga daayo dalka waddanku waa mid soomaaliya la yihahdaa calanku waa mid waa kan buluuga oo 5 xidigood leh dowladduna waa mid waa dowladda soomaaliya dowlado yaryar oo iyada la shaqeeyo iyadoo ay samaysatay oo iyada ka hoos shaqeeya waa inay jiraan waxba kama qabno inay jiri karaan yacni saas oo kale laakiin dowlado kala socda oo midaba meel itijaah ku leedahay oo ajaanib la shaqaysta oo qoloba qolo ku xiran tahay oo balaayo uun cadow ah oo duulaan ugu ah ay ka wada shaqaynayaan arrintaasina arrin la aqbali kara maaha waxaan kaloo ka digayaa quruumaha shisheeye ee lagu kala dheeraynayo qatar iyo magaranaysaa emirate iyo sacuudiga iyo etoobiya iyo kenya mid danteenna waddaa ma jirto mid inaga inoo danaynaysaa ma jirto the only country oo aan respect u hayo soomaaliya waxtarkeedana muujisay xilli aan u baahnayn waa waddanka turkiga la yidhaahdo inta kaleo dhan ujeeday leeyihin qatar waa qoftii negotiationka kula gelaysay maraykanka 11 bilyan oo infrastructureka baan ku siinaynaa adiguna waxaadna siisaa soomaaliya shidaalkeeda soomaaliya shidaalka ma taraan baa iska leh yaa taraam siiyey muxuuse siin karaa oo ka galay yacni edabdaraday ka mid tahay iyo sabotaajka iyo soomaaliya oo loo arko yacni meelo layska maamulanayo qatar anigu weligay ma soo dhaweyn I don't care xiriirkay la leedahay dowladda soomaaliya wixii wanaaga waa soo dhaweynaynaa diyaaraddii maalintii dhaweyd waa soo dhaweynaynaa in dadku intay ka dhoofaan caalamka dooxa qatar ay ka bedeshaan xamar ay toos ku tagaan ama diyaaradda ka qaada yurub dadka intay qatar sii marto inay toos u geyso muqdisho aad baan usoo dhaweynaya wixii waxtar ah oo wax wada qabsiya oo horumarina waddada laleeyahay hadda waxay ka dhisaysaa afgooye iyo muqdisho waa soo dhaweynaynaa airboor bay dayactiraysaa waa soo dhaweynaynaa jaamacaday noo dhisaysaa waa soo dhaweynaynaa isbitaallay noo dhisaysaa waa soo dhaweynaynaa laakiin waa inaan ka niqaashnaa negotiationna aan ka galnaa maxaa lagu bedelayaa waxaas ma axsaan iyo wanaag baa mise annagaa rabtaa inaadna boobto aadna maamulato annagu ma doonayno dowlad dibadda laga maamulo dowladna nooma ah mana rabno dowladda iyadana ma aaminsanin inay maamusho qatar we don't believe that hadday jirto caddayn lahayo dee qofka ugu horreeya oo ka hara aniga wey laakiin I don't believe it waagii la dooranayay qatar baa saaciday oo lacag siisay oo wax tartay qof walba qof baa wax tarayay laakiin uma shaqeeyaan qatar so far ma aragno inay qatar u shaqaynayaan waxba nagama gelin ciddii lacag soo siisay iyo ciddii wax tartay waxaan ku qanacsannahay inay soomaaliya ay rabaan inay soomaalinimo gaarsiiyaan so far stebiska ay qaadeen oo waddankan legitimacygiisii kor u qaaday sovereigntigeennina ilaalinaya waa wax weyn oo maaragtay lagu faano calankeenu waa mid dadkii yaacayay oo diyaaradaha saarnaayoo
madaxweynayaasha goboleedka ah oo intaa yaacayo maalin walba Addis Ababa xaramka ay u ahayd no more step aan la gaari karin wey nimankii ma garanaysa nimanba meel bay kasoo qaadeen nimankaana marka meesha ay hadda gaarsiiyeen oo Soomaalinimada ahay wax la heli kara maaha intaasaan ku taageeraynaa intaasaan ku ammaanaynaa walaa imaaraad baanaan rabin walaa qatar baanaan rabin walaa sacuudi baanaan rabin walaa amxaaraanaan rabin walaa kenyaati baan kulligoodna saaxiib baan la noqonaynaa waa la shaqaysanayna wixii wanaag iyo waxtar ah iyo wax wada qabsi annagana ay waxtar naga rabaan annaguna waxtar ka rabno waa isa siinaynaa annagoo negotiation miis caadi oo babliga oo muuqda oo qarsoodi iyo laalaab ahayn ku niqaashayno wax ku qaybsanayna waxba kama qabno laakiin ma doonayno dalka in loo afduubo wadamo shisheeye oo dadku ay noqdaan dad dalku uu noqdo dal loogu adeego dana gaara iyo dana shisheeye kaas hadduu Soomaaliya ka soo baxo annagaa iskale maraykanna male qadarna male imaaraad iyo sacuudina male amxaara iyo kenyaatina male annagaa iskale Soomaali baa iskale waxaanu ka cuni karno annagaa ka cunayna waxaanu cid ka siin karnana annagaa ka siinayna cidna uma ma garanaysaa laakiin waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo dowladda hadda Soomaaliya ka jirtaa waxay u muuqataa dowlad Soomaalida u shaqaynaysa Soomaalinimana ay ka muuqato intaasaanu ku taageeraynaa waxaan ugu baaqayaa wadaadada Soomaalida meel walba ay joogaan qadiyadaas inay si fiican u fiiriyaan si caatifad aan lahayn oo u fiirsasho iyo kabaaraan degid ah wixii dalka iyo dadka waxtarkooda ah dadku waa inay taageeraan wadaadada marka waxaan ka rabaa inay ku soo istaagaan mowqifka muhiimka ah oo Sheekh Cali Warsame hadda uu qaatay oo ah Soomaaliya waa mid xuduudna ma kala laha hal mid weey mowqifkaasaan rabnaa in la buunbuuniyo shantii Soomaaliya waa in la isu keenaa shantii Soomaaliya waa in laga shaqeeyaa in la raadiyo wadaadada waajibka ugu badan dushoodu saaran yahay iyagaa laga rabaa ilaahay subxaana wa tacaala dadka uu wax weydiinaya iyaga weeye ilaahay subxaana wa tacaala dadka uu la xisaabtamayay ugu horeeyaan waxaa laga rabaa wadaadadu inay qaataan mowqifka midaysnaanta Soomaaliya waa hal wadan waa hal mid hal calan bay leedahay hal luqaday ku hadashaa hal albaabaa laga soo galaa Soomaaliya ciddii rabta inay la niqaashto ama wax isdhaafsadaan albaabka laga soo galo way taqaan ha ka soo gasho albaabkaas daaqadaha ayaan laga soo gelin wadanka jiirooyin ma doonayno cid ma garanaysaa rabta inay waxna yeesho soo dhawayntooda ma rabno marka culimadu ha istaagto siyaasiyiintu ha ka waantoobeen culimadaan xiraynaa culimo lama xiri karo culimo ninkii xiraa daalin wey hadal ma leh culimo xarig ma leh culimo waxay leedahay inta lala niqaasho oo si babliga loola niqaasho masalada ay wataan in la radiyo oo la qamciyo oo lagu qamciyo adillo kitaab iyo sunnada ka adag culimada kitaabkii sunnada baa ka adag culimada uma baahna xabsi iyo garaac iyo dil iyo dhibaatayn iyo humiliation iyo ihaano uma baahna culimadu marka yani waxaan rabaa intaasaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala ha idin barakeeyo dadka Soomaaliyeed Allah xifdiyo wadankana Allah horumariyo nimanka dowladda Soomaaliya madaxda ka ahna Allah guuleeyo hawsha ay wadaan Allah ku guuleeyo meel fiican bay marinayaan halka ha ka sii wadeen waxyaabaha yaryarka ah oo safarka guud oo quruxda badan oo ummaddu u jeedo walaaqaya oo yaryarka ah oo ah internalka naga daaya wixii yani khilaaf iyo buuq iyo gudaha ka kicinaya naga dhaafa gudaha hala ururiyo dadka hala isu ururiyo ha laga shaqeeyo sidii dadka la isugu keen lahaa dadka sidii loo kala dil lahaa ayaan laga shaqeyn lacagahan la dirayo si official loo diri karaa oo ka fiican oo iyaga la marsiin karaa dhihi karaa lacagtan siiya guddiga dhismaha wadada Boosaaso siiya u dhiiba inta u dhiibtaan iyagiyo labadoodii isla jooga baa loogu dhiibi karaa dhihi karaa waatan lacagtan waxaanu siinay guddiga dhismaha Boosaaso dowladii Puntland waatan iyaguna xoogaa barayd ay ka helayaan iyo legitimacy inay dareemayaan inay dowlad yihiin kuwiina xoolahoodii ay rabeen bay helayaan cidina dambi male cidina eed male cid la xirayay cid isdagaalaysaana ma jirto marka calaa kulli xaal bahasha laga daayo camcamiska cid walba oo wax qasaysa qaska hadayso nin kasta wax walaaqaya waa is ogyahay ilaahay ha ka xishoodo ilaahayna ha ka baqo qaskana ha ka daayo dalkan uma baahna qas dambe waa dhimanay dadku waa dhintay waa soo daalay horay baa loo soconayaa wixii ma garanaysaa horumar iyo Soomaalinimo iyo Soomaaliya ah hadda waxay taagan tahay xilliga SYL geesaha in la qabtay rabtaa ma rabto dabaqoodhi iyo jaajuus Soomaaliya ma rabto mid ma garanaysaa meelo kale danahooda wada Soomaaliya ma ay rabto cid u qoran oo cid kale u ah ma garanaysaa u ah qabaan Soomaaliya waxay rabtaa Soomaalinimo horay baa loo soconayaa ilaahay horay ha inoo gudbiyo Sheekh Cali Warsame Allah ha ku xifdiyo ciddii ma garanaysaa wadaad ah oo Soomaali ah
oo nool oo hadalkoodu masmuuc yahayna waxaan uga ka sugaynaa mowqifka shiikha inay qaataan. wallahu subxaanahu watacaala aclam. wsala allah wasalama calaa sayidina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam. wasalaamu calaykum waraxmat ullah.